madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu diiday inuu u shaqeeyo waddanka Ruushka arrintaas oo uu kaga jawaabayay weerarkii ugu dambeeyay ee su'aasha gelinaya xiriirka Trump kala dhaxeeya Moscow isaga oo wariyayaasha kula hadlayay aqalka cad xilli uu kictimayay Louisiana ayaa waxa uu yiri abid uma aanan shaqayn waddanka Ruushka I never worked for Russia. abid uma aanan shaqayn waddanka Ruushka waxa uu waxba kama jiraan ka soo qaaday warbixin uu qoray wargeyska Washington Post taasoo tilmaamaysay inuu madaxweynuhu qariyay turjumaada kulankii uu la yeeshay madaxweyne Putin dhanka kale wargeyska New York Times ayaa waxa uu sheegayaa in hay'adda sirdoonka waddankaasi Mareykanka ee FBI-da ay baaritaan aan horey loo shaacin ay ku bilaabeen madaxweynaha shakiga hay'adda sirdoonka waddankaasi Mareykanka ee FBI-du waxa uu xoogaystay kadib markii uu madaxweyne Trump uu xilkii ka qaaday agaasimihii hay'addaasi James Comey bishii May 2017 baaritaanka FBI-da ayaa wargeyska New York Times waxa uu ku waramayaa inuu madaxweynuhu la wareegay golaha gaarka ah ee wasaaradda cadaaladda ee uu hogaaminayo Robert Mueller Mr. Mueller ayaa waxa uu hogaaminayaa baaritaan socda oo lagu ogaanayo in ololihii madaxweyne Trump uu qayb ka ahaa galaangalkii Crimeanka uu ku yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada ee 2016 mar banaanka aqalka cad lagu weydiiyay inuu madaxweynuhu Ruushka u shaqeeyo ayuu Mr. Trump markiiba hore ka diiday arrintaasi ka hor inta uusan ku darin waxaan filayaa inay ceeb tahay inaad xitaa su'aashaasi weydiisid balse waa been abuur uun Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question. madaxweynaha oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa su'aasha noocaas oo kale ah waxaa sabtidii weydiiyay wariye ka tirsan Fox News taasoo uu madaxweynuhu ugu yeeray caydii ugu darnayd ee abid la weydiiyay wargeyska New York Times ayaa waxa uu warbixintiisa ku sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo si buuxda u soo shaacbaxday oo tilmaamaysa in Mr. Trump uu amar ka qaatay saraakiisha ka tirsan dawladda waddanka Ruushka Saciid Axmed Tamreyse wararka telefishinka caalamiga ah Star